waxay saameyn ku yeelatay xirfadii qoraalka ee macalinka iyo xirfadii qoraalka ee ardayga. maxaa la isticmaalaa shortcut message fariimaha lama dhaadheereeyo waa laga imika assalaamu calaykum buu qorayayo ASC walaalo WWL saas uu qoraya. khasaaraha ugu weyn ee ay teknoolajiyadu waxbarashada ku keentay waxay lack of focus, attention-kii iyo diiradii iyo xiisiga jacaylkii waxbarashada loo qabay ayay meesha ka saartay. waxaan doonayaa imika inaynu balsla eegno saameynta taban ee ay teknoolajiyadu ku keentay waxbarashadeena. saddex baa ugu waaweyn. kow waa decline writing skills. waxay hoos u dhac aad weyn ku keentay xirfadii qoraalka ee macallimiintu lahaayeen ardayduna ay lahaayeen. halkaa haddaynu siyiro dul istaagno due to using excessive usage of online chatting and shortcuts, isticmaalka xad-dhaafka ee teknoolajiyada iyo fariimaha gaagaaban ee dadku isku diraan waxay saameyn ku yeelatay xirfadii qoraalka ee macalinka iyo xirfadii qoraalka ee ardayga. all the time waxaan isticmaalnaa online chatting. imika inaad qof warqad u qorto oo kaaga soo jawaabo waxaa ka dhow oo kaaga fudud inaad online chatting samaysaan oo WhatsApp-ka fariin uga dirto isna kuu soo diro. sidoo kale maxaa la isticmaalaa shortcut message fariimaha lama dhaadheereeyo waa laga imika assalaamu calaykum buu qorayayo ASC walaalo WWL saas uu qoraya. saaxiibo SX PVP for pen buu qoraya. qofkii waxan uu la qabatimay dee arrinkani muxuu keenayaa haddaba today's young generation have declined quite tremendous writing skills. xirfadoodii qoraalku completely hoos bay u dhacday. waxaad arkaysaa macallin cashar dhigaya samuurada ku sharaxaya ereyada qaar spellingkooda iyo qoraalkooda ka shakeeya sababtoo ah isticmaalka teknoolajiyada ee xad-dhaafka. ardaygii baa is odhanayo qoraalka ardaygu uu qorayo waxa laga yaabaa inuu shortcuts-kii message-yadii uu fariimaha chatting-ka ku diri jiro online-ka inuu casharkii markaad qorayso uu ku dhex qoro oo uu iska sahashado uu soo gaagaabsado. haddaba digital communication-kaasi forget about improving their writing skills wuxuu hoos u dhac weyn ku keenay horumarintii ay ku keeni lahaayeen xirfadooda qoraalka. mana garanayaan isticmaalkii spelling different words adeegsigii ereyadii kala duwanaa ee grammarkii. waxaan maxaa hoos u dhaca ku keenay waa teknoolajiyada oo qofku imika markuu isleeyahay fariin online chatting samee ereyada qaar isaga ay sii qoriyaba deedna oo kale baad siinaysaa. tii markay kugu badatay aad u adeegsato ereyadii soo gaagaabiso waxa laga yaabaa hab qoraalkii ereyada inaad xil badan iska saari weydo. mushkiladda labaad ama saameynta taban ee teknoolajiyadu ku leedahay waxbarashada waxaa ka mid ah waa increasing incidents cheating. waxay kordhisay kor u qaaday xaaladii qishka. mobile phones maxaa la yidhahdaa ayay high touch watches saacadaha iyo mobilada iyo wixii la adeegsanayo dhan waxay noqdeen great source of cheating. qishka ayay u noqdeen il aad u weyn oo wax weeyaan waxaa soo baxaya macallin, waxaa soo baxaya arday, waxaa soo baxaya dhakhtar, waxaa soo baxaya injineer. wixii uu dhiganayay oo dhan waxaa u fudeydiyey inuu adeegsado oo isticmaalo oo ku qisho teknoolajiyada. dabadeedna hadhow toole manfic iyo faa'iidadii laga rabay halkii ay taagneyd mid ka hooseysa ayuu qofkii yeelanaya. khasaaraha ugu weyn ee ay teknoolajiyadu waxbarashada ku keentay waxay lack of focus, attention-kii iyo diiradii iyo xiisiga jacaylkii waxbarashada loo qabay ayay meesha ka saartay oo aad hoos ugu dhigtay. oo waxaa jira SMS-ka ama text messaging-ku maxay noqdeen waa favorite pastime. waa waxyaabaha dadku ay ugu jecel yihiin waqti kasta inay isticmaalaan ama ay adeegsadaan. ardaydu maxay samaynayaan playing their cell phone telefonadoodii bay ku ciyaarayaan way adeegsanayaan day and night. wax kale iska daa between the lecture casharka gudihiisa ayuu mobilkiisii doonaya ardaygu inuu ama fariin ka diro ama wax ka daawado ama game ku ciyaaro deetama connected to the online world. in the online-ka iyo digital-ka dunida lagu isticmaalo aynu ku xidhanaa waxay keentay lack of focus in academic. in nidaamkeennii tacliineed iyo guud ahaanba jacaylkii xiisii waxbarashada beriga hore loo hayay inuu noqdo mid hoos u dhacay. faa'iidooyinka ay teknoolajiyadu u leedahay waxbarashadana
they horta more excited to learn markastoo teknolojiyad la isticmaalayo wax dhigashadii mid aad u xiiso badan ayay noqonaysaa faa'iido kale ay teknolojiyadu waxbarashada u leedahay baa jirto waa decrease papers and photocopy waxay hoos u rideen qarashkii iyo income-kii ardayda kaga bixi jiray inay buugaag daabacdaan inay waraqo soo koobiyeystaan oo imka waxa laga yaabaa arday jaamacadda dhigta 3 sano uu digriga diyaarinayay inaanu one day warqad ama buug maktabada kala soo bixin kaliya assignment-ka macalinku uu diro lagu yiri heerka ku keen inuu qarash ku bixiyo even xitaa waa assignment-kii online ahaan ku diro oo waxa weeyaan iyadoo teknolojiyadii la isticmaalayo marka horta waxa weeyaan waa promoting concept waxay kor u qaaday in dadka ay isticmaalaan teknolojiyadii iyaga oo dhimay ama yareynay kharashkii kaga baxayay daabacadda waraqaha iyo iibsiga buugaagta iyo waxyaabahaas oo dhan and waa freedom to work at home xornimo aad u weyn bay qofkii siinaysaa teknolojiyadu markuu wax ku baranayo ama uu dad wax ku barayo khasaaraha teknolojiyadu waxbarashada ku leedayna waxa ugu weyn waa thinking abilities reduced waa hab fikirkii tolmoona iyo garaadkii iyo garashadii ardayda iyo macallimiinta labadaba hoos bay u dhigtay waa isticmaalka teknolojiyadu khasaaraha kale jira waxaan waa time consuming teknolojiyadu waqtiga ayay cuntaa waliba waa from teacher's point of view marka aragtida ama dhinaca macallimiinta laga eego waxay ka aaminsan yihiin isticmaalka teknolojiyadu inuu yahay wax waqti badan ka cunaya waana arin xaalad caafimaad darro keenaya haddii qofku aad u isticmaalo guntiyo gunaanadkii waxaan ku soo koobaynaa teknolojiyadu saameyn aad u weyn bay ku leedahay guud ahaan nolosha waxbarashada macallimiinta hay isku dayaan inay qayb ka noqdaan the era of technology qarnigan teknolojiyada maadaama ardaydii iyo waxbarashadii dunidu ay u guurayso digital oo dadka maanta wax loo dhigayo ay yihiin digital age maamulada dugsiyada wasaaradda waxbarashada iyo cid kasta oo danaysa nidaamka waxbarashada ee wax loo dhigo iyo wax loo dhigto waa inay isu diyaariyaan inay qayb ka noqdaan isbeddelka xawliga ah ee ku socda teknolojiyada waxbarashadu ay ku keentay saameynta ay teknolojiyadu ku keentay waxbarashada